بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكبر إنه ويدينتنا what is an employee performance appraisal أما قيمته وحقبت كشقالها performance appraisal وحنكو قيحي كرنا إني تهي قاب نظام سن أو لو قيميني وحقبت كشقالها الشركة أما هي أدى أنت لقو ذا جرو مدعى يمن أما كوبان سيدا السنة اللي أما لح بالكستوامر قيمين تاسنا وحا لوغا قول لي هاي أما لوغا جيدا إن قفكاس لقيميني اللي أغادو ماشو وكفي عين هاي iyo halka uu uga baahan yahay in laga hormariyo waxa intaas sii dheer waxa qiimeynta lagu ogaadaa mushaar bixinta soo socota inta ay la ekaan doonto ma mushaar kordhin ayaa jiri doonta mise sidoo kale waxa lagu ogaadaa haddii uu qofkan shaqaalaha ah u baahan yahay tababar si uu shaqadiisii si hufan ugu guto sidoo kale haddii la siinayo dalacsiin ama loo ballan qaadayo sidoo kale waxa loo dejiyaa yoolka laga filayo inuu qofkaas muddada soo socoto gaaro iyo wixii la halmaala si aan u fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan aan dhahno shirkad waliba ama hay-ad waliba dadka maamulka ka haya waxyaha kala duwan sida iibka ama suuqgeynta ama maaliyadda oo kale ayaa waxa ay qiimeynayaan waxqabadka shaqaalaha ka howlgala waxdooda ama unug hoosaadka qiimeyntan waxaa lagu ogaanayaa haddii uu qofka yoolkii loo dejiyey ama shaqadii laga sugayey uu qabtay wada shaqaynta kala dhexaysa dadka ay shaqo wadaagga yihiin waa sidee sidoo kale waxaa lagu ogaanayaa haddii qofkan la qiimeynayo uu u hoggaansamay shuruucda u taala shirkadda ama hay-adda iyo wixii la halmaala haddaba xogta ka soo baxda qiimeynta ayaa la rabaa in qofka la qiimeeyey uu jawaab ka helo qaabka loo arkay waxqabadkiisa muddadii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa loo dejinayaa walxaha laga filayo inuu qofkaas qabto sanadka soo socda waa maxay sidoo kale waxaa lala wadaagayaa fursadaha jira ama jiri doona oo isku horumarin karo iyo wixii la halmaala fiiro gooni ah waxaa shaqaalaha qiimeeya dad kala duwan insha allahu video kale ayaan uga soo hadli doonaa gunaanad performance appraisal aad ayay muhiim ugu tahay waaxda maareynta shaqada iyo shaqaalaha waayo waxay u suurtagelinaysaa inay la socdaan waxqabadka shaqaalaha sidoo kalena ogaadaan meesha ay ku fiican yihiin iyo meelaha ay uga baahan yihiin in laga hormariyo hadda ka hor ayaan ka soo hadalnay qeexidda HRM training and development iyo compensation ee fadlan ka dhageyso lifaaqyada hoose ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما تسندين وإنه مركل هذه ربي ذمو